السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج كيني حسوس قرل اختر يدين قرطو يدين ديارسو دكتور هباق بوبال اي كسو ديارسو مقالة هرقيسا ان كلمدها افكينا كسو بحضا ان سفع عن ادورنو او نوفر سنو سببتو وحويان كلمدها قاركود ودناها يكون ولاتا ووليد مريمتو كلمدها قاركود مركي افكينا كسو بحضو واسيدا ورنكا وي ارديسا oo qof ay dhaawacaysa ama nabar u geysanaysa ana weligii ana bogsanaynin kelmadaha qaar koodna markii soo baxdo waxay shidaa dab iyo qiiq dadka indhahooda xidha laga yaaba kelmadaha afkooda ka soo baxda inay ku dhaawacdo ama sidii ku eegayaan ama comment-ki ka bixinayaan laga yaaba marmar qaar kood inaanad awoodi karin inaad iska difaacdo ama hadalku afkaaga aanu ka soo bixin waana dadka aanad iska celin karin laga yaabo inay kaa xoog weyn yihiin ama ay kaa buruud weyn yihiin ilaahay wuxuu yidhi bismi illaahi raxmaani raxiim yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskhar qowman min qowm casaa an yakuunuu khayran minhum sadaqa allahu alcadiim waxaad u malaynaysaa inaanu ilaahay maqlayn cabashadaada ama damqashadaad ka damqanaysid dadka hadalkooda laakiin ilaahay wuu ku arkayaa waanu ku maqlayaa waanu kuu aargoosanayaa waanu kuu heelinayaa qiimahagan kor wuu u qaadayaa abaalmarinna wuu ku siinayaa xadiiska qudusiga wuxuu yidhi ilaahay wuxuu yidhi qofka marka la dulmo wacizatii wajalaalii la ansurannaka walow bacda xiin wuu ku dhaartay ilaahay cisadiisa iyo jalaalkiisa ku dhaartay inuu qofka la dulmo uu u hiiliyo berigii nebi moxamed sallallahu calayhi wasalam uu taa'if u tegay suu dacwadda diinta islaamka u faafiyo ayaa dadkii taa'if ku noolaa way caayeen oo taa'if baa laga eryey caruurtoodiina waxay ku dhiiriyeen inay dhagax ku shiidaan oo ay caayaan taa'if buu ka baxay isagoo lugihiisu dhiig ay ka da'ayaan oo aad u murugaysan markaasuu geeda hoos fadhiistay markaasuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ducaa'iisa caanka ah allaahumma ilayka ashkuu ducfa quwatii wa qillata xiilatii wahawaani cala annaas yaa arxama arraaximiin anta rabu lmustadcafiin oo macnaheedu ay tahay ilaah waxaan kuu ashtakoonayaa وأن كون شيء جلي عيقا يدبت ضدك يقهيان إلهي قيميسي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيكر قاضي ووحيري ولو سوف يعطيك ربك فترضى وحتمي معجزتي إسراء والمعراج سي النبي قا نيد الوقوديسو وداوع عن لوغيستي وقلبي سو كميرو وغفر حيو وأبال مرين وغردقو إلهي كرب قاضي وتدبدي السماوات كا أيو دحمري وتجي سدرة المنتهى وماشى وقدام بسوقف وجاري كرو أنا عدني أنا جاري حتى ملائكته ما جاري كرتو حلك سو جاري النبي محمد صلى الله عليه وسلم سدي إنه إلهي كل يهي هدي أهل الأرض أما دتك يدولك كون على الباب ده أي وجهها أي كحران الباب ده أنا جو كوفر انتهي الباب ده السماء كوفرينا وقربا كو قاضينا وانا نكسور دوينينا وحبا دمك آخرين حريست إلهي يدقس مديسة لكن mid ka mid ah sheekooyinkan akhriyay ama maqlay ayaa runtii aad ii taabatay taasoo muujinaysa naxariista weyn ilaahay uu leeyahay iyo cibaadkiisa sidoo ugu naxariisto iyo sidoo qalbigooda u dhiso iyo sidoo niyadooda u dhiso iyo sidoo uu qiimahooda kor u qaado marka la xumeeyo iyo sidoo ugu hiiliyo ugu aargoosado oo qiimahooda kor u qaado ma dhici kartaa qof inuu ilaahay uu daraada qalbi jabka lagu riday inuu abaalmarin uga dhigo inuu qacantiisa uga hayo furaha guriga adduunka ugu qaalisan gurigii ilaahay alkacba almusharafa ma dhici kartaa qof ilaahay sidoo uga farxiyo oo abaalmarin inuu uga dhigo inuu dadkoo dhan isaga iyo duriyadiisa uu ka doorto oo qur'aan lagu soo dejiyo qof caadiya oo malaa'igna aan ahayn nabina aan ahayn waxaan uga jeedaa sheekada sadanat alkacba ما قرنيسان waxa la yiraahdo saadin alkaaba saadinku horta waxa weeyaan af carabiga qofka ka mas'uula inuu daryeelo alkaaba almusharafa kaabadi ilaahay iyo gurigi ilaahay qofka ka mas'uula qofkaas wuxuu haynayaa furuhi alkaaba almusharafa furaheeda gurigiisu ku haynayaa wuxuu ka mas'uul yahay inuu albaabkeeda furo ama uu xidho wuxuu ka mas'uul yahay inuu mayro oo ku mayro maa'il ward iyo maa zamzam oo cuudna uu ku cadareeyo wuxuu ka mas'uul yahay inuu daaha madowga kacbada inuu ka bedelo ama hadduu xumaado inuu hagaajiyo
wuxuu ka mas'uuliyay inuu kacbada u furo si dadka u qalma inay galaan ama ay soo boqdaan inuu isagu u furo waa qofka qori loo ogoliyay kacbada inuu galo ama uu ka soo baxo furihiisiina haya marumaysanaysan hadaba sharafta furahaas inuu ilaahay u dhiibay reer caadiya ama dad caadiya oo ku nool Makka Mukarrama inuu ilaahay sharafta uu siiyay oo furaha uu gacanta ka saaray walibana waxa ka daran qur'aan buu ku soo dajiyay inaan cidina aanay ka qaaday karin furahaas oo furahaas weligoodii ku ay haynayaan waxaan ka hadlayaa reer la yiraahdo al-Shaybi waa maxay hadaba sheekadoodu berigii hore intaanu islaamku iman ama nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam aanu soo bixin ayaa waxa jirtay nabi Ibrahim iyo nabi Ismaaciil ayaa ka mas'uul ahaan jiray kacbada yaka kacbada daryeeli jiray oo mayri jiray oo nadiifin jiray oo u diyaarin jiray xujaajku inay imaadaan oo soo boqdaan kabacdi markay dhinteen waxa ka mas'uul noqotay qabiilad leeyahay Jurhum hadhowtan waxa imi nin leeyahay Qusay bin Kalab waxa weeyaan awowgii shanaad ee nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam isaga hadhowtana mas'uuliyadii Kacba al-Musharrafa isaga qaaday iyo mas'uuliyadii xajka isaga qaaday oo ka mas'uul noqday oo ka qaaday qabiilada Jurhum Qusay bin Kalab wuxuu dhalay 4 inamood ka ugu weyn waxa la yiraahdaa Abdiddar yimid leeyahay Abdul Uzza يميد إلى عبد مناف يا عبد شمس قصي بن كلاب إسقوا والي مكة أها أيا إن مديسو وحي أتجد شرين جناعسجا لبتشر سندك مر حلق قبوبها مرنا حلق كليلك تاصلوات إلهي كل شيء جناعسجا لو تجد شري حلق قبوجا حلق كليلك وك إلهي قرآن كل شيء وبحي رحلة الشتاء والصيف عبد الدار وحوها إنن كوينة قصي بن كلاب إنن كاسو وحيابو كصاب سنيد شركيسة أما عافمات كيسة أما أود ديسة دوفكا يسفر كاد دير مو قلي كاريتشرن ويسوقو سفر كا ولاليه مو راعيتشرن ووحسكت شوقو تشري مقالة دا سبب تساقو عنيد إنا walaalkoodaas inaanu dadku aanay hadal haynin oo markasta ay ku caayaan inaanu dhoofin ama aanu safrin ama ina lagu caayino yahay qof jilicsan awood aan lahayn maalin maalmaha kamida walaalihiiba ku caayay taas oo ku xantay inaanu dhoofin ama aan awood aan u lahayn ganacsi u sameeyo aabihiiba xanaaqay markuu arkay inankiisii xanaaqsan oo murugaysan markaasuu dhaar buu maro wuxuu yiri qiimahaaga wallahi inaan kor u qaado oo cid walba anaa kaaga eexanaya wuxuu sameeyay Qusay bin Kalab awowgii shanaadii nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam inankiisu qacantii buu ka saaray mas'uuliyadii sidaanada waxa weeyaan qofka ka mas'uulka ah kacbada furaha kacbada haya iyo wuxuu siiyay mas'uuliyadii as-siqaaya iyo rifaada iyo daar nadwa سقايد وحويين قفك كمسؤولة حجاجك صوبوقضا حرمك إنه بيها أوليقو رفادتنا وقفك كمسؤولة مركي حجاجك إمادان داد قفك جيلك أقالا دار الندوة نفريه إذا وحا هيا قفك كمسؤولة دار الندوة وميشا يسوق إمادان عقاشة يوحقرات كقريش يسوق إمادان أي كشران شرفتا صوردان يوحا صوردان وحوق عنتك الصاري إنكي سوين عبد الدار isagoo u hiilinaya oo qiimihiisa kor u qaadaya oo abaalmarin uga dhigay oo niyadiisa kor u dhisaya Qusay bin Kalab markuu dhintay ayaa walaalihiiba ku qabsaday Abdiddar sharaftan aabihii gacanta uu ka saaray markaasay ku yiraahdeen waxaan aan kula wadaagno wuu diiday wuxuu ku yiri wax kasta wada qaata oo ma doonayo laakiin furaha kacbada idin ma siinayo anaa ka mas'uula سداندي أما فريه كعبدا إلى وقت كان أنشوغنو وإنتا سو قرن يوقت وكسو وريجي عبد الدار فريه كعبة المشرفة وحا هي درية ديسي عبد الدار عرورتو دالي أيا وحا كمد أهام إن الليلة عثمان بن أبي طلحة أيا فرها هي لكن مركي وقت إسلامك يودعي فتح مكة ودينة إسلام وصوق علي أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنتو إمي أيو فريه كعبده وكقاضي عثمان بن أبي طلحة مركو كقاضي أي صنم كي ماشي يلي أصنام تبو تشبيه كعبدني أنتي قالين أيو مايري ونديفيه كبعدي هدوتنا عثمان بن أبي طلحة يسوق مروجي سنبو هو يدي يكون نقضي ولفريب عليه قاضي بس هو يدي يسجن لمروجاتي وقت كبعدي أي علي بن أبي طالب يسوق أرد أيو يموحكو إلي كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أياكو دونيا مركز وحول ويدين كفريه قاضي بحيك دونيسان وحكو إلي نبي جواب مروميسان إله إنه قرآن درادة أسودتي أديك كوكو صابسان قرآن لآخر آيو إلى يوم القيامة
سبحانه وتعالى إلهي قرآن بوسودج آيات بوسودج وإلي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلهي وحدكم أمري أمانة دا إن دتك لها أوعى لسان ومعني أيتي فريه كعبدة أوعى دتك هايستي مركي هوري انتو نبي عثمان بن أبي طلحة وير أيو فريه بقعنتك الصهاري وحكو إلي هدوتنا خذوها يا بني طلحة بأمانة الله سبحانه وتعالى واعملوا فيها بالمعروف خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم وحكوري فرها قاتا إذن كاله بأمانك إلهي وإلهي إذن كوكعنت إذن كساري إلاليو ومعروف سمايا وفرها سنة وليجين إذن كوكعنت إذن كتشريا إلى يوم القيامة عدنا إذن كما قادي كرتو قفك إذن كقاتانا والظالم فريه كعبة المشرفة أما قرق إلهي كعبة أيا عثمان بن أبي طلحة أيا هيي إلى إن تورتنا عثمان بن أبي طلحة أودنتي يسقون أبد مودلين حلو تنفرها وحكا قاتي إنا دير كيرونا ولا إلهو شيبي با إلى إمن كأبد كودلي أيا فريه كعبة قعنتك وهيا عدنا كما قادي كرتو عد والبوي كبقيس إني كقادو سببت وحويان نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحوري قفك كقاضى وظالم واحد عي وقت كم ذا وقت يدي هري أيان نين كم ذا حكام كي مك أيا طمعين فريين وكقاضو مركز هادو تنا وحو وكبقي وحوري هادو قفك استوي عاوي ما أنت يقول هاد ظالم دين كمريه لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول شيء إن ظالم هاي تأم أتكيسان كرو مركزو يسكداي إنه فريك قاضو بقول يسجال يكونتن نين أو كم درير آل شيبي أيا فريه قبطي إلى وقت كان أنشوغنا إيكا فري ولي هيا عدنا كما قاضي كرتو إلى هين الدرادود آيات بأسودتشي آيات إلى ليس حق هذا أو شرف نصينيس أو كرقي وقيمه هذا وقاضيسا ووحولي رد الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم هذا بوحة حسوستان reerkaas al-shaybi ilaahay wuxuu dad abuuray oo dhan ayuu ka dhex doortay uu ka dhex soo saaray sidii furaha gurigiisa u hayaan oo gurigiisa ay mas'uul ka noqdaan hibad rabbaaniya ayuu nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu siiyay uu yaka dadka ka soo dhex doortay waxaana iminka hayaan shaqadii ay anbiyaagu ay hayn jireen iyo shaqadii ibraahim iyo nabi ismaaciil maanta ay ka qacanta ku haya sababtuna waa maxay sababtu waxa weeyaan nin loo abaal marinayo nin la niyad jabiyay oo niyada ilaahay uu dhisaayo nin qiimihiisa hoos loo dajiyay oo qiimihiisa kor loo qaadayo ayaa ilaa iminka isagiyo duriyadiisi qiimahoodu kor uu qaadan yahay oo ay noqdeen dadka ka mas'uulka ah meesha ugu qaalisan adduunka guriga ilaahay haddaba waxaa xasuusataan markasta hadday dadku ku dhibaan ama hadalkooda uu ku dhibay hamoodin inaad cadlad taagantay ama keliga inaad tahay hamoodin inaad daciif tahay ama bilaa awood aad tahay waxaad markasta xasuusataa inuu ilaahay ku arkaayo iyo inuu ku barbar taagan yahay ilaahay isku hadlee oo qamcahana kor u qaad oo ilaahay bari ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idhi walasawfa yuctiika rabbuka fatardaa sadaqa allahu alcadiim ilaahay wuu ku siinayaa waana kuu hiilinayaa waana kuu argoosanayaa xaqaagana wuu kuu soo celinayaa waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh